waxaa magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya lagu qabtay kulan uu ku magacaabanayay ku-xigeenka Nadiif Jaamac oo u taagan xilka madaxweynenimada maamul goboleedka Gaarisa County. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Nadiif Jaamacna wuxuu ku soo bandhigay ku-xigeenkiisa iyadoo dastuurka Kenya laga ansixiyay 2010 uu qorayay madaxweynaha dalka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa hal mar in la soo doorto madaxweynaha maamul goboleedka iyo ku-xigeenkiisana mar la doorto. taas ayaa qasbaysa ruuxa in uu soo magacaawdo ku-xigeenkiisa si uu taageero ugu raadiyo. waxa anaga aan doonaynaa waxaa weeyay yacni county governance system oo ay ka kooban yihiin dadka Gaarisa oo dhanba degan. waxa la wixii ahaa matalan qabaa'isha waxa la wixii ahaa meeshan maslaxad ku lahaa dadka oo dhanba ilaahay idinkii waa dad maad ummad walaala ah isku dan ah isku dal ah wada siman. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan habayno council ama guddi professions ah. Cabdullaahi Xuseen Cali oo isna u sharxan ku-xigeenka madaxweynenimada maamul goboleedka Gaarisa County oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in aan la iska soo xulan oo markii horeba guddoomiye uu ahaan jiray ardayda jaamacadda. Gaarisa in isku imaatay hanti ay maan rabto oo dadweynaha u leeyahay Gaaris baa iska Gaarisna magac kale male waa Gaaris. So Gaarisa County waa greater waa dad badan. si kastaba haatee magacaabistan uu magacaawday ku-xigeenka Nadiif Jaamac ayaa waxay u soo jiidaysaa taageerayaal badan. Maxamed Ciise Xuseen, Honkabel TV, Gaarisa.